بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي waa Dr. علي أحمد محمد Dr. علي عديس kuna taqasay daaweyntii qaliimada cudurrada ku dhaca lafaha kalgoosyada murqaha iyo seedaha xubinna ka ah ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed kana howlgala isbitaalka Aadan Cabdil Hospital ee magaalada Muqdisho. ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed soo wadeen muddooyinkan wacyigelin ku saabsan cudurrada ku dhaca lafaha iyo sida bulshada loogu wacyigelin lahaa waxyaalaha qaar ay u baahan yihiin in loo sheego. maanta mawduuceeni wuxuu ku saabsan yahay TB-da ku dhacda lafaha. xaqiiqatan TB-da way saameysaa lafaha sida xubnaha kale ee jirka, sanbabada, lymph nodeska iyo xubnaha kale sida u saameyso ay lafahan u saameysaa. laakiin marka laga soo tago sanbabada iyo lymph nodeska meesha saddexaad ee badanaa saameyso waa lafaha. ha ugu badnaatee laf dhabarto ay boqolkiiba konton saameyso. waxay kaloo saameysaa simaha, jilbaha iyo kalgoosyada kale. marka maxay tahay marka calaamadaha qofka lagu ogaado? waayo waxaan aragnaa bukaano badan markay noo yimaadaan qofku wax uu horeeyo ku weydiinaya ay tahay in laga baaro TB-da lafaha ku dhacday. ha ugu badnaatee dadka gobolada ka yimaada. waa sax TB-da lafaha way saameysaa, laakiin cudur walbo lafaha ku dhaco ma ahan TB ma ahan. waxaa jiro cudurrada badan oo chronic ah ama chronic waxaan ula jeedaa waqti dheer qofka uu la daalaa dhacayo. ha u badnaatee rheumatismada. waxaa jiro kale cudurro la dhaho degenerative disease, arthritis-ka, kalgoosyada iyo dhammaad oo kale. waxaasoo dhan waa cudurro oo waqti dheer qofka la noolaanayo. marka waxaad arkaysaa qofka haddii cudurrada qaar qofka uu qabo inuu mar walba shaki gelinayo inuu leeyahay TB. marka TB-da waxay leedahay calaamadooyin gooni ah iyo waxay leedahay qaab loo maro, baaritaan loo maro iyo qaab loo daaweeyo. way ka duwan yihiin kale. haddii la ogaado qofka inuu leeyahay TB way fududahay in daawadiisa uu qaato uu ka daaweysmo. haddaba TB-da calaamadaha ay leedahay maxaa ka mid ah? qofka calaamado waxaa jiro ay ka sameeyeen yihiin sanbabada iyo lafaha la isugu yaqaano waa common symptoms-ka ay TB-da ka sameeyaan. qofka inuu leeyahay inuu miisaankiisa yaraado, ay ku dhacdo cunto xumo, qandho, in habeenkii qandho badan u dareemo ay tahay. waxa marka laga soo tagay intaasi qofku wuxuu dareemaa xanuun oo meesha TB-da saameysa. hadday tahay dhabarka inuu qofka ka sheegto dhabar xanuun, haddii neerfaha ay saameysana oo qofka ka sheegto in lugihii tabartii wixii ay yaraadaan, haddii ay tahana kalgoosyada ay tahay ama simihii ama jilbihii hadday tahana qofkii inuu socodkii gabo, xanuunkii ku zaa'ido, jilbihii hadday tahayna barar iyo wuxuu la yimaado. marka waxaa jiro habab badan ee qofkii lagu ogaado inay TB tahay. waa inuu maraa baaritaanada lagu ogaado TB-da. hadday noqoto in dhiiggiisa qofka baaritaan uu ku maro iyo in qaababkan oo kale raajooyinkii iyo iskaanadii loo sameeyo. kadib qofkii haddii ay tahay TB la ogaado in uu daawada TB-da qaato. laakiin waxaad arkaysaa dad badan oo aanan lahayn cudurka TB-da oo aan cudurkaasi qabin haddana qaadanayo daawada TB-da waqti dheer qaadanayay. markay ku yimaadana aragtana aysan ahayn wax laga daaweynaya aysan ahayn TB. marka bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa cudur walbo lafaha saameeyo micnihiisa ma ahan qofka wuxuu leeyahay TB. dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed oo daayar ay u badan tahay maanta waxay diyaar u yihiin in bulshadoodii u shaqeeyaan, ay garab ka siiyaan, ay dhakid garaan, ay baraan cudurku wuxuu yahay iyo qaabka loo daaweeyo. haddaba qofkii markii uu calaamadihii iyo wixii uu dareemo waxaan kula talin lahayn inuu tago dhakhtarka lafa ee ku habboon shaqadaasi si uu maro baaritaanada saxda ah, yuusan iska qaadanin daawo sax aan ku ahayn cudurkiisii. billahi tawfiiq. waan mahadsantihiin.